kani waa clip canaana oo ku socda baarlamaanka iyo dawladda dhexe iyo wixii Soomaaliya oo wax garanaya. ninba wuxuu siday mayd inuu soo xabaalo u siday uu ka farabaxsaday. waxa laga hayaa hadduu sii go'ay Soomaaliya hadday sii go'day markii la yiri loo dhaariyo bangigeedii dhexe iyo sirteedii iyo dhaqaalaheedii loo dhaariyo nin ajnabi ah loo dhaariyo iyadoo aan la waayin qof Soomaali ah oo hawsha qaban kara. Soomaaliya hadday sii go'day awal weynu ogeyn tuhum baynu qabnay waxa la oranayay ajnabi baa Soomaaliya xukuma wuxuu yeeriya musuq baana maxaan ku raah baahay oo qofku uu shakhsigiisa yani wuxuu doonayo uusan u doonayn qaran u doonayn ayaa maxaan ku Soomaaliya haligay. laakiin hadday cadaat Soomaaliya in la yiraahdo bangigeedii dhexe waxa loo dhaarinaya nin ajnabi ah iyadoo aan la waayin nin aqoonteed leh oo maxaan ku raahdaa aaminaadeed leh oo Soomaaliya oo caymiya oo loo dhiibay iyadoo aan la waayin. boqolkiiba 50 ku dhow ay ajnabi yihiin. dadkaas waxay u dhaarteen ummad kale iyo dal kale oo ay baasaboorradooda haystaan. Soomaaliyana markii ay jagada ka waayaan iyo waxay dhacayaan way isaga huleelayaan. Soomaaliya caymay u baahan tahay arrinta in la dhugtay u baahan tahay baarlamaanka inuu u furo musuqmaasuqaas oo albaabada u furo 24 saac gudahood yiraahdo xeerkii baa la bedelayaa lagu heshiiyey oo federaalka ahaa oo nin ajnabi ah loo dhiibayaa bangiga dhexe oo waa laga saarayaa in Soomaaliya in loo dhiibo. waxa weeyaan waa musuqmaasuqa bihi waana arrin socota waana arrin u baahan in wax la iska weydiiyo. Soomaaliya markii ay ajnabi qabsadeen ajnabiga waxaanu moodaynay dad Soomaali haaf ka ah oo ahaan jiray oo wax cayminaya laakiin hadda waxa cadaatay inay yihiin ajnabi Soomaaliyana doonayaan inay ajnabi ka gadaan waxay ku dhacaan ay nin cadaan ugu magacaabanayaan maxaan ku raahdaa bangigii dhexe ee Soomaaliya inuu u qabto oo wax la cuna waxay u ekaysiinaysaa arrintaani ruwaayo inta raq ku heshiin waayay yiri war libaax aynu garsoore ka dhigan oo raqda noo dhowrano dhahno oo wax noo qaybaano dhahno taasay ka dhigan tahay. ruwaaya meeshii isugu tagay ruwaa libaaxna waa u yeerteen. Soomaaliyana halkaas bay ku gunaanadmaysaa qarannimadeedii haddii aan laga qaban. waa in xeerka la bedelaa oo nin wasiiri uusan noqon xildhibaan uusan isku hayn karin. waxaa la isweydiinayaa aaway kaalintii baarlamaanka aqalka sare meeday kaalintii ay ku lahaayeen dawlad goboleedyadu xeerka kan marka wax laga bedelayo inay raalli ka yihiin oo og yihiin bay ahayde meeday kaalintoodii mise iyaguna wave ka socda hirka socda ayay isla tuureen oo musuq la tuuray. arrintaas iyada ah waxaa loo baahan yahay in wax laga bedelo sida ugu dhaqsiyaha badan dadka shacabka ahina ay ka kacdoomaan arrinta iyada. haddaynan adinka laftigiinu iyo shacabka laftigiinu uusan hirka isla tuuraynin oo uusan isku dayaynin inuu musuqa qayb ka yahay arrintaas in wax laga qabto oo Soomaalinimadii la soo celiyo oo dad u diirnaxaya Soomaaliya ay meesha keenaan oo executive ka qabsadaan oo madaxweynenimada qabsadaan oo baarlamaanka qabsadaan baa arrinta lagu badbaadin karaa. laguma badbaadin karo sidan hadda ay wax u socdaan. Assalaamu calaykum.